wasiirada wasaaradaha warfaafinta mudane Salabaan Yuusuf Cali Koore iyo arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed oo saxaafadda kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa ka hadlay arrintii ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale saxaafadda loo xiray arrintaasi. ugu horeyn Salabaan Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay iyadoo la dhowrayo nidaamka dawladnimada iyo dastuurka in saxaafadda xiran la waafajin doono sharciga isla markaasina cidii lagu helo dambi loo mari hanaanka sharciga cidii dambi lagu waayna la sii dayn doono. waxaanu dardaaran u diray saxafiyiinta kala duwan ee dalka ka howlgalay isagoo sheegay inaan xukuumaddu ku faraxsanayn in la xidho saxaafadda. waxaan rabnaa inaan kelmad yar ka idhaahno arrintii maalintii dhaweyd ka dhacday jeelka Hargeysa. marka ugu horeysa wax ku cusub dawladnimada iyo caalamka midna maaha in shaqaaqo ama المحبوسي وقرارات كسمة يجال أما أمر ديدو أما سمايو وحن لوغا باهنين كعصب معها والسنة سوي تشري سيدا لولا ديل قريو يا سيدا الله معمولانا وحايا غانا عيدا كا يددك الله توبري احيا taa waxaan leeyahay ummadda reer Somaliland aynu u dayno shaqada cidda loo igmaday ee dastuurka iyo dawladnimadu u igmatay. qolada saxaafadda waxaan leeyahay qof bili aadana oo aan dambaabini ummaddu maaha macsuumiin. ummad baynu nahay fara badan dad aad u fara badan baynu nahay oo sharci iyo dawladnimo samaystay. cid kasta oo dambi gasha waxaynu samaysanay qaab loo hay-ado dastuuriya oo ku shaqo leh. qofna intuu qof soo xidho gurigiisa kuma xidho ama meel uu geyn karaa ma jirtay. hay-adaha dastuuriga ah ayaa lala dhiilgaraynay. saxaafadda wixii hadda xidhan waxaa loo mari doonaa wadada sharciga ah annagoo aan ka tegayn iyo iyadoo loo eegayo in dhalinyaro fara badani ay ku xidhan tahay intaba. waxaana la eegi doonaa sida sharcigu qorayo cidda dembi gashay iyo cidda aan dembi gelin. cid alla ciddii dembi aan gelin waa la sii dayn doonaa sharcigaana sii dayn doona. ciddii dembi gashayna way arki doonaan dadku. markaa qaran ahaan waxaanu nahay dal sharci iyo kala dambayn leh. waanaba waa ka xunnahay ma jeclin mana jeclaysan doono inta tiradaa la-eg oo saxaafadda ka shaqeeya la xidho. laakiin haddii qofku uu dembi galo qof kasta oo muwaadina oo dembi gala dembigiisa waa lagu qaaday. askartu xaq bay u leedahay inay qabato maxkamad la geeyo dastuurka iyo maxkamadaha sharciga dalku wuxuu ka qabo la maro. aad iyo aad baan u salaamayaa. waxaana leeyahay si dhaqso ah ayaa looga warheli doonaa ee wixii dembi aan gelina waa la sii dayn doonaa. wixii kalena sharciga ayaa sheegi doonaa meesha ay iyo qaabka loo maamulay. Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in intii ay Jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay saxaafaddu ay ahayd mid madax bannaan isla markaasina waqti xaadirkan siyaasadda lagu hagaa ay tahay mid madax bannaan balse qaybka ay u tabiyeen wararka iyo sidoo kale warbixinada ku saabsan arrintii ka dhacday xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ay ahayd mid baalmarsan shuruucda iyo nidaamka dalka u yaala. arrintii xabsiga magaalada Hargeysa ka dhacday daraamadii ka dhashay iyo waxyaalihii warbaahinta saxaafaddu ay ka sii daysay. arrinkaa waxaan doonaynaa inaan bulshada caalamkana u sheegno dadweynaha iyo shicibka reer Somaliland aanu sheegno
dowladda reer Somaliland ilaa iyo bilowgii intii ay soo jirtayba xilli kastoo joogtayba maamul kasta oo joogayba saxaafadda Somaliland waxay ahayd saxaafad madax bannaan xukuumadda Somalilandna ay ula dhaqmaysay sida maxaan ku dhahdaayay looga dhaqmo caalamka dimuqraadiga ah ee adduunyada ka jira dowladda maanta jirta saxaafadda Somaliland siyaasadda ay aaminsan tahay siyaasadday kula soo dhaqantay siyaasadday mustaqbalka kula dhaqmayso waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan oo xorriyad u haysata dareemadooda siyaasiga ah inay maxaan ku dhahdaayay ay si madax bannaan ay u jeediyaan kaliya waxaynu iminka daba soconnaa ama arrintaynu ka hadlaynaa waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka warkii ka dhacay saxaafaddu siday warka u sii daysay xaqiiqada ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara taa waxaan u daynaynaa sida aynu ognahay nidaam dowladeed baynu leenahay nidaamka dowladeed ee aynu leenahay isaga inoo xadeeya xilli kasta goob kasta arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro sharciga loo maro iyo qaabka loogu dhaqmayo hay-adaha sharci dejinta iyada oo ay jirto madax bannaanidaasi dowladduna aaminsan tahay mustaqbalkana ay aaminsan tahay arrintaa waxaan doonaynaa waxa ka socdaa iminka waxa weeye hay-adaha sharci dejinta ee dalka hay-adaha nabadgelyada ee dalka sida biliiska maxkamadaha xeer ilaalinta waxay arrintaa ka wadaan oo gaar ahaan cidda gacanta ku hayso biliiska ugu horeeyay xeer ilaalintu waxa dhacay maxaa sharciya iyo maxaan sharci ahayn labadeeda wasiir hadda iminka arrintan aan ka hadlayno waxaa noo keenay inaanu labadeeda wasiir ka hadalnaa waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xadhigooda labada wasaaradooda ku shaqo labaanu nahayoo wasaaradda waa wasaaradda warfaafinta oo waa line minister iyada oo ah saxaafadda wasaaradda daakhliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo aaneynayo inay hoos yimaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday dhanka kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sheegay in suxufiyiinta xidhan aan loo sameeynayn dambi aanay gelin balse wixii sharcigu uu ka qabo la marin doono isagoo sheegay in xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland iyo xisbigeeda talada hayaaba ay yihiin mid dimuqraadi ah oo dalka iyo dalkaba ku haga nidaamka dimuqraadiga ah halkan waxaan doonaynaa inaan ka cadeyno marka ugu horeysa suxufiyiinta xidhan oo aan annaguba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo tira intaa leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin inaan cidna sharci si khaldan loogu qaaday aan lagu abaabulaynin waxaan doonaynaa markaa arrintaas sida sharciga Somaliland uu yahay baynu maamulaynaa si la difan baa loo maamulayaa si aan loogu talax teginoo maxaan ku dhahdaye dhib loo abuurin baynu loo maamulayaa dowladda Somaliland saxaafadda weligeed yaalaheed marna gacan maroojin kumay samaynin marna dhibaato kumay samaynin waxaynu doonaynaa markaa uma jawaabaya hadda waxna ka tari maayaan dad isleh saxaafadda kalsooni kaga samaysta oo u dhigaya in ay dowladdu khalad gashay waqtigeeda ayaanu ka hadlaynaayo waxaan isleenahay taasi iminka marxaladeedii lama joogo laakiin arrinkan iminka ku koobannahay waxa weeye arrintaasi dariiqyada sharciga ah inoo yaalaynu maraynaa ajnabiga dowlado fara badan oo dowladaha reer Yurub aan soo weydiiyay qaar waan uga jawaabnay qaarna waan uga jawaabaynaa waxa weeye iyagana waxaan jecelahay inaan maxaan ku dhahdaye aan la politicize garaynin oo sharciga Somaliland loo gafin dowladda Somalilandna waxay iska ilaalinaysaa
nidaamka dimuqraadiyadda ee tobaneeyada doorasho ee geeskan Afrika aanu ku naalla ka dhici kari la aanu ku soo marnay oo dowladda maanta xilka haysa iyo xisbigeedu muddadii ugu badnayd imika ay hayeen mar walba ay ku sifoobaan dimuqraadiyadda maxaanku dhahdayay ugu tayada rool leh inaanay marna maxaanku dhahdayay dibna uga soo noqonaynin dhibaatana aanay ka noqonaynin aanaan garan waayi doonin haddana aanu ku sugannahay inaanu si fiican ula soconno inaanu keyska saxafiyiintayada si dimuqraatiga oo nidaamka sharciga iyaga waafaqsan oo waayeelnimo iyo dulqaadasho ay ku siman tahay inaanu u maamulo waana mahadsantiin